بسم الله الرحمن الرحيم كنا تو وناكسن داوديال dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii codka jaaliyada Canada oo idinka ka imanaya stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya ee magaalada Ottawa ee dalka Canada. Daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa golaha midnimada qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa ka dhisan magaalada Ottawa ee dalka Canada oo talooyin iyo hambali u soo jeedinaya in dawladda rasmiga ah ay ka dhalatay dalka Soomaaliya. waxaana haatan stuudiyaha telefishinka qaranka ee magaalada Ottawa haatan la jooga دكتور عبد الرحمن أحمد نور صلب دكتور أحمد نور يا دكتور عبد الرحمن هلول دمانتي بقصة دوادة تلفزيون كقناة سوماليا دولة رسمية هي كرر لفصيل فور قطع درك سوماليا اللي بندي كلها برلمان كلا وبقول يتطبعات اليشم يا أضياش كذاك أي صحورين دستور كي وحاسيكم الجار وأنسحيي سيدير بقول يحوجا gudoomiye baarlamaanka madaxweynihii ra'iisul wasaarihii marka runtii rajadu way wanaagsan tahay talooyinka ugu horeeya waxaan ku bilaabanaa Dr. Sulb maxaad soo jeedinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaan u soo jeedinayaa hambaliyada kadib xasuus waxaa laga yaabaa waxyaabaha aan sheegayo inuu la wada socdo ama ogyahay xasuus su-aashu haddaan u bedelo madaxweyne muxuu noqon karaa muxuu ogaan karaa muxuuse qaban karaa muxuuna qaban karin muxuusan noqon karin muxuusan ogaan karin muxuusan noqon karin muxuusan ogaan karin muxuusan qaban karin waxyaabaha madaxweynuhu uuna noqon karin waxaa ka mid ah inuu meel kasta joogo wax sifo kasta oo wanaagsanna leeyahay ma noqon karo wuxuuna ogaan karin wax kasta oo dalka ka jira gudihiisa dowladdiisa wax kastana ma samayn karo haddaba waxa weeye su-aashu muxuu noqon karaa muxuu ogaan karaa muxuu samayn karaa waxyaabaha uu noqon karo madaxweynuhu waxaa ka mid ah inuu noqdo ama leeyahay madaxweyneaad noqotid qof mukhlisa oo aan khiyaano isticmaalin qof runlow ah oo aamin ah oo aan la tuhmin qof mutawaadic ama hambal ah oo aan ahayn qof kibir badan qof talada maguurtaanka kolkay joogana go-aan adag leh markii loo baahdana flexible ah ama ku miisaama arrimihiisa labadaas marna noqda dhagax markii loo baahan yahay marna biyo noqda waxyaabaha laga rabo qofka madaxda ah ama madaxweynuhu inuu ogaado waxyaabo badan weeye Soomaaliya way duntay way burburtay waxyaabaha loo baahan yahayna waxa weeye in waxa ummadi ku kacdo iyo waxay ku dhacdo ogaanshaheeda waxa qaran iyo ummad lagu dhisi karo iyo dal iyo waxa lagu dumin karo guul waxa lagu gaari karo iyo guultarada waxa keena arrimaha guud iyo kuwa gaarka ah awoodda aan leenahay ka ummad ahaan iyo dowlad ahaan iyo awood darida diyaar garowga la rabo in la diyaar garoobay intuu la egyahay howlaha la rabo in la qabto iyo waqtiga la qaban lahaa waxyaabaha marka madaxweynuhu uu qaban karo waxaa ka mid ah in uu dhiso koox leadership team inuu dhiso koox hogaamiyaal wanaagsana labo inuu ugaarsado oo doorto dadka ugu leh qulubta ugu fiican iyo maskaxda ugu fiican waxaan ka wadaa advisors fiican inuu yeesho ama la taliyayaal aada u sarreeya prime minister wanaagsan inuu xusho prime ministerku wasaarada fiican inuu doorto
wasaaradahaas inay doortaan maamulayaal wanaagsan. waxyaabaha uu qaban karo madaxweynuhu waxaa ka mid ah in uu kooxda ama tiimka ama dowladda in uu mar walba u noqdo kii ku durayay ruuxa ikhlaasnimada iyo howlqabadka, aragti dheer u dejinayay, fulinayana aragtidaas dheer ama himilo sare iyo howl la socota. in uu strategic planning diyaariyo ama qorshe mid dhow, mid dhexe iyo mid dheer. in uu dhiso waxyaabaha uu qaban karo madaxweyne waxaa ka mid ah leadership development center ama xarun lagu diyaariyo madaxda maanta iyo tanberi intaba. waxyaabaha marka haddaba aan niri madaxweynuhu ma qaban karo ama qofka madaxda ahi ma noqon karo iyo waxaa ka mid ahaa meel walba ma tegi karo. haddaba hadduuna meel walba tegi karin waa in uu sameeya aragtida uu leeyahay, himilada uu leeyahay, the vision, the mission, the message. aragtidaas iyo risaalada uu wato xambaarsan yahay inuu meel walba gaarsiiyo. maadaama uuna wax sifo kastoo wanaagsan lahaan karo, laakiin sifooyin wanaagsan uu lahaan karo, in uu doorto dadka ugu wanaagsan, dad leh awood iyo karti aada u sarreysa iyo sifooyin aada u sarreeya. maadaama uuna wax kasta waxaan yidhi unu ogaan karinna, in uu qof kastoo madaxana wuxuu leeyahay meel uu ku fiican yahay, meelo uu ku liito, inuu isku wareejiyo meelaha uu ku liito dad uga wanaagsan aada iyo aad, say u kabaan ama u buuxiyaan ama u dhammaystiraan. waxyaabaha aan idhi ma u qaban karo ama ma samayn karo maadaama ay jiraan, oo ah inuusan wax kasta qaban karin, inuu dhiso madax wanaagsan, kuwaasina ay dhisaan institutions wanaagsan. taas baan warkaygii kusoo gabagabaynayaa. hal shayna mar walba, no pain no gain. aad baa umahadsantahay. waa tahay Dr. Sulub, runtii waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo balbalaadhisay talada iyo hambaliyada aad usoo jeedisay, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. haatan Dr. Axmed Nuur waad maqlaysaa Dr. Sulub runtii inta uu isdaba dhigay oo talo iyo runtii wax walba uu isleeyahay madaxweynaha ha uga faa'iidaysto fursadda tan. adiguna waxaa ku darsanaysaa oo talo aad usoo jeedinaysaa iyo haddii hambaliyaba ay jirto. bismillahi raxmaan raxiim. hadalka intiisa badan professor cabdiraxmaan ayaa sheegay, marka ku celis badan uma baahno, laakiin qodobo xoogaa ayaan ku dari doonaa. marka hore waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari, xildhibaanada baarlamaanka kulligood u hambaleynayaa, iyo processkan hadda dhammaaday dadkii kasoo shaqeeyay dowladdii hore oo runtii muddo usoo dhabar adagtay diyaarintii dastuurka cusub, ansixintiisii, ergadii loo doortay. macnaha howlo waxay ahayd la wada qabtay oo Soomaali badan ay kasoo wada shaqeysay. marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay marxalad taariikhi ah oo muujinaysa haddii la wada shaqeeyo in wax fiican la gaari karo. wada shaqeyn ay maaragtay iyo midnimo ayaa horumar lagu gaaraa iyo barwaaqa iyo nabad. marka in hawsha halkaa laga sii wado, madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha uu dooran doono iyo golaha wasiirada ay dhisi doonaan, waxaan ka filaynaa maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay ka filaysaa in ay maaragtay shaqo wanaagsan oo howlihii adkaa ee maamuladii ka horreeyay ay usoo dhabar adeegeen ay halkaas ka sii wadaan. fursad fiican ayay haystaan, macnaha marxaladda hadda waddanku marayo. macnaha waa maaragtay dadka rajaa gashay, waddanka isbedel baa ka jira. dowladdu ma aha dowlad ku meel gaar ah, taasna waa ilaahay mahadiis. marka in fursaddaas ummadda Soomaaliyeed looga faa'iideeyo, madaxweynaha inuu dhiso maalan hay-adihii dowladda, ma aha golaha wasiirada oo keliya, waxaan ujeedo institutionski, agaasimayaashii, shaqaalihii, staffkii, macnaha hoos laga soo bilaabo ilaa biitooniga ilaa iyo wasaarad walba in institutions jira ay noqdaan, oo haddii dowladdu ay beri tagto dowladda imaanaysa
ay meesha ay ugu timaado maaragtay hay-ada dhisan. marka sida uu professorka sheegay waa ku raacsanay professor Cabdiraxmaan in madaxweynuhu uu maaragtay la taliyaal fiican u yeesho dhinaca مثلا hadda aniga kulli waxaan arkaa dhinaca state building ama maaragtay institution building dowladda Soomaaliyeed in la dhiso institutionskeeda waxaaba iyadoon meel fog la aadin madaxweynaha la taliyaal fiican u noqon karo professor Jawaari oo runtii wasaaradaha Soomaaliyeed qaybo badan oo kamid ah soo dhisay hoos laga soo bilaabo ilaa iyo Jawaari wuxuu ka soo shaqeeyay shaqaalaha hoose personal level agaasimo waaxid agaasimo guud wasiir ku xigeen wasiir marka in professor Jawaari dhinacaas waxa way qayb fiican buu ka qaadan karaa madaxweynuhu naftirkiisu maaragtay waa shakhsi qof kastoo bini aadana meel ayuu ku wanaagsan yahay meelana waa ku liitaa marka meelo badan ayuu madaxweynuhu maaragtay ayuu ku wanaagsan yahay oo wax ka akhriyay taariikhdiisa inuu hawshii fiicneed oo wadanka uu soo qabtay ummadda Soomaaliyeed isagoo madaxweyne ahayn 20 sano u dambeysay xagga developmentiga xagga gargaarka dhismayaasha waxbarashada waxaas oo dhan madaxweynuhu inuu sii wado oo asaaba expert ku adnacaas uu sii xoojiyo oo maaragtay laakiin dhinacyada مثلا dhinaca ciidanka oo kale dhinaca security-ga inuu u helo dad maaragtay expert u ah oo maaragtay marka wadanku inuu noqdo wadan loo wada jiro loo wada dhan yahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay mar kale in wadanka madaxweynaha malaha madaxweynuhu waa madaxweyne Soomaaliyeed ummadda u dhaxeeya hala la shaqeeyo maaragtay aan gobol loo fiirin from Masra Soomaalidu waxay tahay Caseer ilaa Raskamboni ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne u yahay hala la shaqeeyo madaxweyne fiican wuxuu ka soo dhaxbaxaa ummad fiican haday ummaddu fiican tahay madax fiican ay yeelanaysaa marka madaxweynaha wixii uu tala u baahan yahay waa madaxweyne very humble ah khayr Allah siiyo hala kaalmeeyo hala la shaqeeyo si wadanku uu maaragtay uu noogu maaragtay nabadoobo oo maaragtay horumar iyo barwaaqo aan u tiigsano marka intaas aan kaga baxay waa tahay Axmed Nuur badan qofka taraha waa maqlaysaa tafasiil iyo Axmed Nuur sida ay balbalaariyeen talooyinka ay sida gaarka u soo jeediyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka adigu maxaad qorsanaysaa السلام عليكم marka hore waa maasanta waxa aan sheego meesha igama harin oo labadii Dr. Sulub iyo Dr. Axmed dhameeyay intii aan sheegi lahaa oo wax meesha hadal badnaan ma ahay anigu waxaan ku darsan lahaa waxyaalo yaro aan islahay mataqaana laga maarmaan waaye waxaana kamid ah maadaama aan ummad muslim ah ku abtirsada diinta islaamka tiraahadana aaminsan ku dhaqan inay ku dhaqanto madaxweynaha waxaan kula dardaarmayaa inuu noqdo nin daacad oo diintiisa kuna dhaqmo marka ugu horeyso kuna dhaqo ummadiisa tan labaadna waxaan dhihi lahaa maadaama ay jiraan waxyaalo badan oo mujtamaca Soomaaliyeed maanta u baahan yahay waxyaalaha laga maarmaanka inuu horumariyo waxyaalaha kalena oo mataqaana u kala qaybiyo qaybta ugu horeyso waxyaalaha ummadda muhiimka ah sida nabadda cadaaladda dhisidda mataqaana hay'adaha bulshada u adeega kuwa ugu muhiimsan in maaragtay xoog la saaro sida waxbarashada kale iyo in la sameeyo wax la yiraahdo sulh ilaa Soomaalida maadaama ay dhibaato badan ka dhaxdhacday oo civil war dagaal sokeeye soo dhaxgalay dagaaladaas sokeeye marka waxa loo baahan yahay nafsadooda inaan mataqaana la inkirin oo mataqaana dhibaatadaas la xilliyo ayadoo hawshii kale la wado tan saddexaad aan ku darsan lahaa waxay tahay madaxweynaha waa inuu dareemaa markastana og yahay in uu yahay madaxweyne Soomaaliyeed inuusan ahayn madaxweyne gobol madaxweyne reer ummad Soomaaliyeed dooratay marka ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka filayso dhan in mid la diyaara lana kaashado ummadda kale uusan noqon kaligiis taliye hadda dad badan la taliyay madaxweynaha oo tala maanta ka maqan ma laha talooyinkii la taliyo dhan inuu mid kasta la tixgeliyo mid kastana wixii maartay munaasab ku ah waqtigaas xaadirka uu hayo inuu la soo baxo oo yiraahdo mataqaana asagoo la tashanayo gudiyo daacad ah oo og yahay inay daacad yihiin in danahooda gaarka waxyaalaha nolku eeday waxa kamid ah in dadkeena maamulka ay u bataan xogaa yar in ay kal u muuqan maartay si dad wax u qabanay daacadnimo ummadooda marka madaxweynaha waxa howl badan sugaysa Allah u fududeeyo ay dadka la shaqeyn doona doorashada dadka u dooranay la shaqeynayna kuwa wanaagsan Allah ka dhigo hadda ducaa iyo maartay iyo taageerabo oo u soo dirana madaxweynaha dadka ka soo horjeedo waxay noqon doonaan wax ku dhisan maartay madaxweynaha soo u shaqeeyo hadduu madaxweynaha daacad yahay
weligiis wuu daahaya qof kastana waa u riyaaqa sida wax u doortana waa lagu qiimeynaa hadduu madaxweynaha noqdo mid maaragtay haddee kuwiina soo mari jira lagu tilmaamana hadda tii ay noqonaysaa maaragtay in madaxweynihii dhibaatadii hore uusan huri doonin marka la tashadka badanna mararka qaarkood dhibaato keenaa laakiin ha samaysto guddi maaragtay u sameeya waxyaalahan la tashiga ah mudan in lasoo ururiyo qof kastoo Soomaaliya maanta meel kastoo joogo kulliba inuu awood u heli doono u malayn maayo inuu madaxweyne la taliyo marka ha soo qoro oo maaragtay website-yada nafsadooda iyo qolooyinka war isgaarsiinta ha furaan meelo mataqaana madaxweynaha talo loogu soo jeediyo iyo waxyaalaha uu jeeday in la tuso marka waxaan dhihi lahaa ugu dambeyntii hadda madaxweyne kaliya inta loo soo jeediyo maaha ummadda Soomaaliya inta loo soo jeediyo Soomaaliyay hadda waxa la heedeen mataqaana waxaan rabnaa wax daacada hadda wax daacada waa inaad idinka shaqaysataan marka hore haddaad madaxweynaha ka soo horjeesataan daacadnimadii meel ay ka baxayso lama yaqaan iyo dadkii la doortay marka qof kastoo la doorto qofka jaanis ha la siiyo ha la arko ilaa muddo uu qofkii ku muujiyo shaqada inuu hagaag u qabanayo inuusan u qabanayn marka in yaan laga hortagin dadka xataa maartay aaminsan quudareynayo in wax fiican soo bixi doonaan in iimaanka ay suga iimaankooda la sugo ayakana mataqaana muddo siiyaan dadkaas oo kale marka waxaan ku soo gabagabeynaa dhamaanteen xil ayaa naga saaran Soomaaliya oo dhan madaxweynaha kaliya maaha qolada baarlamaan ku jirtay intaan ku jirinba qof kasta Soomaaliya inay dawladdaasi ay daacad u noqoto taageertana inta kalaankeeda hadal ha noqoto qil fiican ha noqoto haddii wax la bixinayo donation ha noqoto haddii la wada shaqeynayo daacad loo wada shaqeeyo aad baad u mahadsan tahay runtii saddexdiinaba sidaad u dhigteen hadalka waxaan filaya dadka Soomaaliyeed naga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliya inay runtii wax badan ay ka ogaan karaan talooyin wax ku oolna soo gudbiseen inta badan sidaad ka warqabtaan dowladihii ku meel gaarka ahaa ee isku xigay waxay ka sinaayeen runtii in maamulka ama runtii shaqooyinka qof walba mas'uul uu leeyahay iyo qofka kale ay isku dhex galaan oo la isqab qabsado saddexda mas'uul ee ugu sarreysa dalka gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladihii hore waxaan arki jirnay in isqab qabsi far badan uu jiray marka nin walba mas'uulan runtii shaqadiisa waa yaqaana laakiin waxaan rabnaa dadweynaha Soomaaliyeed inaad idinku aad u sharaxdaan job description-ka uu leeyahay ninka la yiraahdo afhayeenka baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddaan tusaale soo qaadano dalka Talyaaniga madaxweyne uu leeyahay iyo ra'iisul wasaare waan garan karnaa runtii qofka active-ka ah oo shaqadiisa gudaha iyo dibadda ay ka muuqato inuu yahay ra'iisul wasaaraha dalka Mareykanka madaxweynaha u taliya awoodda dhan asaga imaarada hoos tagta inkastoo golooyin kala duwan uu leeyahay Dr. Sulub haddaan kugu horeeyo adigu aad soo koobto 2 daqiiqo hawlaha ay kala leeyihiin markaa fiiriso iyo meelaha ay isugu imaan karaan oo runtii keeni karta in hawlahooda ay isdhex galaan maxaa ka mid madaxweynuhu kolka horeba kolka uu dooranayo ama xulanayo ra'iisul wasaaraha wuxuu u eegaa qofkaasi valueska uu xambaarsan yahay ama qiyamka uu xambaarsan yahay kartida uu leeyahay iyo khibradda kolka uu yiraahdo qofka kani waxa laga yaabaa dhowr qof in loo keeno kala xusho oo yiraahdo qofkan baan la baxay talo iyo la tashi kadib qofkaas kolkuu magacaabo in uu u daayo in uu xusho ama keeno wasaaradihii marmar qaarkood waxaa dhacda kan iigu dar kan ku dar kan ka saar kan gee arrimihi baa isdhexgelaya kolkaasa waxaa dhacaya prime ministerkii baa wuxuu dooranayaa ama loo doorayaa qofuuna doorteen prime ministerku saasoo kale inuu job description-ka yaqaano wasiir kasta oo ku qiimeeyo oo kolkaas uu yiraahdo wasiirkaani caafimaadku ku fiican yahay kani wuxuu ku fiican yahay waxbarashada kani wuxuu ku fiican yahay amniga marka taas kolkay dhacdo buu wasiir kastaana doorto dadkii la shaqayn lahaa marka in la ixtiraamo qofka khibradiisa iyo cilmigiisa waayo aragnimadiisa la ixtiraamo loo daayo marka labaadna in uu leeyahay wasiir kasta prime minister qof kasta in uu garanayo shaqada laga rabo intay tahay qofka kaliya baa la yiri oo shaqo gaar ah aan lahayn waa madaxweynaha waayo shaqooyinka oo dhan la isku daray aragti dheer buu dadka u horseedaa meel fog buu
tusaa ninka madaxda ah waa qof arka waxaan dadku arag waa qof fahma dadka ka hor fahma waxayan fahmin waa qof meel ka fog dadka ka arka taas iyo guubaabadii iyo kicintii weeyaan howlfulintana loo daayo barnaamijkuna wasaaradaha u daayo intaasaan oran lahaa waa mahadsan waa gartay axmed nuur maxaad ku tarsanaysaa adigu sidaan ka warqabnaba runtii go-aan kasta oo ay qaataan prime ministerka iyo golihiisa wasiirada waxaa fuliya hay-adda sharci dejinta ayay la hortagaan golaha shacabka qaranka baarlamaanka ayagaa runtii fuliya laakiin waxyaabaha nin walba uu mas-uul walba saddexdaasi uu gaar u yahay aysan hawshooda isku dhexgeli karin adiguna waxaa ku tarsanaysaa aniga waxaan ku darsan lahaa horta kow waa in daacadnimo madaxda ay la timaadaa qaranka Soomaaliyeed waqti kasta oo joogaan ama kuwa hore ahaadaan ama kuwa cusub noqdaan daacadnimada macnaha waxay keenaysaa isqabsi inuusan dhicin cadaaladda in la ilaasho daacadnimada in lagu dadaalo iyo in مثلا gudoomiyaha baarlamaanka inuu institutionkaas dhiso oo ku mashquulo baarlamaankiisa xubnihiisa siday tababar u heli lahaayeen sidii maaragtay wadamada kale u tagi lahaayeen fikrado usoo qaadan lahaayeen institutionka naftirkiisa loo dhisi lahaa inuu gudoomiyaha baarlamaanka uu shaqada uu ka soo baxo institutionkaas uu dhiso waa wax dhaxal oo ummadda u horay barto madaxweynaha sidoo professorka sheegay wuxuu u dhaxayaa maaragtay hay'adaha dawladda waa sharci ilaaliyaha leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa asaga aan ka rabaa isna ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa hadday isqabsadaan principe oo miidiyaha ay usoo baxdo oo isqabsi u yimaado ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa inuu waraaq istiqaala uu keeno sababta waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha keentay madaxweynaha soo magacaabay oo kalsooni siiyey oo yiri ila shaqeey ra-iisul wasaaruhu marka haddii principle marka ay madaxweynaha isqabtaan usla shaqeyn karin inuu meesha sii fadhiyo ma aha waa inuu raganimo yeeshaa oo yiraaha lama shaqeyn karo madaxweynaha ama this is asoon waxba oran madaxweynaha lama shaqeyn karo inuu yiraaho shaqadii waa kalsoonida kugu soo ceshay madaxweyne qof kale marka isku aragti tihiin keenso laakiin in ra-iisul wasaaruhu uu caqabad noqdo oo maaragtay meesha uu fadhiyo aan la dhaqaajin karin oo waa arrin aan laga fiicnin marka aniga waxaan qabaa ra-iisul wasaare kastoo hadda imaanaya madaxweynaha keeni doona madaxweynaha soo ummadda ka soo xulan doona oo kalsooni siin doona kalsoonidaas waa in lagu aaminay oo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed uu ku aaminay waa inuu si daacad ah ula shaqeeyo haddii uu arkay inuusan la shaqeyn karin inuu si tartiib ah shaqada u dhiibo Dr. Axmed Nuur haddaan kugu soo celiyo arrintani aad wax yar noo faahfaahayso runtii madaxweynaha isagaa doortay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahana hadduu og yahay wax walba shaqo kasta uu qabanayo midda uu ku saxan yahay midda runtii in lagala taliyo u baahan tan uu ku saxan yahay hadduu og yahay in madaxweynaha uusan ku faraxsanayn uusan raalli ku ahayn go-aan adagna uu yahay oo dalka iyo dadkaba runtii lagu badbaadin karo oo uu arko inay maslaxad tahay ra-iisul wasaaraha laakiin madaxweynaha uusan jeclaysan marka ra-iisul wasaaraha ma kala dooranayaa wixii danta guud dalka ugu jirtay ama wuxuu dooranayaa shaqadiisoo wixii madaxweynaha raalli ku ah buu qaadanaya si shaqadiisa ay u badbaado ama si danta iyo dalka ay u badbaado wuxuu qaadanayaa go-aan kale waa mas-uuliyad weeyaan waa inuu miisaamaa ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu waa sharci ilaaliyihii waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed go-aan oo liddi ku ah qarannimada Soomaaliyeed madaxweynuhu ma qaadanayo marka waxa imaan kara waa aragti opinion fikrado kala duwan ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabi karaan ra-iisul wasaaraha marka laga rabaa inuu bridge gareeyo arrintaas oo madaxweynaha ka dhaadhiciyo oo uu si kastoo aga dhaadhicin karo ha u talabadsado dhinacyo kale ha ka soo galo laakiin haddii ay arrinta imaado maaragtay in isdhaqaajin waayo oo madaxweynihii iyo wasaarihii ay timaado qofba inuu meel ku dhigo aniga waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha inuu yahay ninka ay tahay inuu shaqada ka tago waa gartay tarax waa maqlaysaa adiguna haddaan noo kala qaado nin walba shaqadiisa kulleyba way kala duwan tahay nidaamka ay ku shaqeynayaan adigu taa maxaa ku darsanaysaa anigu waxaan ku darsan lahaa marka hore waa mahadsantahay Muxudiin marka hore waxaan ku darsan lahaa maadaama anigu aan ka shaqeynayay baaro muddo badan waxaan ku arki jiray laba shay marka la isbarbar dhigaa marka hore waa in labada shay isku xaalad ahaadaan marka maamulkeena Soomaaliya aan ka rabno haddaan dhahno maamulka reer galbeedka kale aan dhahno dimuqraasi iyo prime minister u shaqeeya Talyaaniga iyo Switzerland iyo Norway haddaan dhahno saas oo kale ha noqdaano anigu waxaan qabaa weli realistic ma nahi dad run isu sheegay maahin oo waa waxaan rabi lahayn inaan gaarno maartay dad maamul heerkaas ka gaar laakiin muddo nagu qaadanaysa oo madaxweyne darar la doortay inuu noqon doono ama anigu kama filayo waa rajayna rajada way ku jirtaa laakiin tan xigto madaxweynaha haddii uu doorto qof uu yaqaano asaga
waa adagtaha mararka qaarkood inuu doorto sababtoo ah qofka la dooranayo xaalad kala jiro anaka aan ogeyn ay ku xiranta xaalado badanaa jiro allaha u fududay inta kale dhig tan xigta waxa waaye prime ministerka la doortay haddii la doortay oo wax loo keeno oo aan munaasib ku ahayn constitutionka Soomaaliya degsatay hadduu madaxweynaha xataa qortay asaga ay la xun tahay asaguna dawladii maartay dhibaato gaadho ummadda ka fikiray inuu yiraahdo ma aha xataa waa ka tagay waa dhihi kartaa oo anigu shaqadan ma qaban karo markaa ma ogeyn laakiin inuu mucaaradnimo keeno ma aha Soomaali kama maarmayso marnaba waqtiyadan xaadirka ah in maartay aysan dhici doonin xurguf ka dhaxaysa prime ministerka iyo madaxweynaha way dhici doontaa laakiin waxaan rajaynaynaa labada dhinac ka rajaynaynaa inay noqoto minimum ay mid ay xiliyaan ay ku xiliyaan ayagoo markasta mata qalbi ku haya danta guud waxaan ku soo gabagabeyn lahaa anigu hal hab Soomaalida markasta waxay qabtaa qaacidooyin ay ku saleyso mataqaana waxyaalaha ay qabanayso family aan ka soo qaadno reerka aabba iyo hooyo ilmihiis badanaa waxaa maqli jiray haddii reerkaasi dhibaato ku timaado waxyaalaha dhibaatada u keeni kara waxaa ugu horeeya talo xumo aabbaha ku timaado xaggiisa iyo cirweynin hooyada xaggeeda ka yimaado imaan darro ah maamul xumo ah marka prime ministerka iyo madaxweynaha waxaan rajeynayaa inaysan naqan labadaas borobarti dad leh ee dhaqdaan kuwa aan lahayn oo xiliyo marka war hadda meeshaan in la wada shaqeeyo loo wada yimid ummadana shaqo in ka wada sugaysaa saad ku shaqeyn lahaydeenbu haddaysan ahayn maaragtay Switzerland oo rajada aan lahayna laakiin tan aad haysaan inaad u qabataan mid ummadaasi munaasib ku ah xaaladaasna waafaqsan ummadihii kalena ay u riyaaqaan dadka yaryarna ee mustaqbalkooda u noqoto mid ay isleeyihiin ku dayasha ayay mudan tahay dadkii horena ay u yiraahdaan Allah ilaahay waxa fiicnaan lahaa inaad saas wax u wadaan waa ka baxay khilaafku marna waa xun yahay marna ma xumo khilaafku micnaheedu waxa weeyaan laba qof sida مثلا madaxweynaha prime minister in qofba arrin meel ka eego si uu eego in qof kasta uu fiiriyo madaxweynaha iyo prime minister labaduba iyo madaxda timaada faa'iidada iyo khasaarada yaa badan waxba marka waxa leeyahay waxaan aan sameyn ama yaan sameyn in la isfeer dhigo mar walba faa'iidada iyo khasaarada kan badan hadday faa'iidadu badan tahay in la sameeyo hadday khasaaradu badan tahay in laga tago khilaafka iyo ra'yiga badan ma xuma shan haddaan nahay ma afar nahay oo afar ra'yi isku keeno afar ra'yi ka fiican hal ra'yi oo keliya ka fiican taas waa muhiim habka hadda waxyaabo badan garanayo Soomaalidu in aan maarta u tababaranahay kol waxaa la sameeyaa مثلا waxaan ka hadlaynaa hal qadiyo ama hal issue aan ka hadlaynaa arrinta aad ka hadlayno marka qaar qofku wuxuu leeyahay arrinta anaa wata ana ila fiicanta wixii ila fiicanna waa xaq waa sax waa inaan sameeynaa taa waa khalad wax kula fiican baa khaldanaan kara wax kula xun baa sax noqon kara maxaa la sameeyaa marka mar walba in la fiiriyo faa'iidada iyo khasaarada ku jirta koow taa markii la eego la isfeer dhigo kadibna muxuu ahaa tanaasulaad ay jiraan yimaadaan haddii qofku uu arko madaxda ahay waxa kan qiyamkiisa in ay meel uga dhacayaan soo ma garan waa inuu joojiya way fiican tahay inuu yiraahdo wixii la degsanada nidaamkii la degsadana in lagu kala dambeeyo waxa uu liita مثلا nidaamka ka مثلا traffic sanyaalaha marna la daaray marna soconaya jidka kan waa hal way ma gali kartid misaal ahaan wixii la degsado haddaan lagu kala damayna waxba hagaagi maya waa mahadsantii waa gartay Dr. Sulub runtii su'aashan ku weydiinayna waxaan u wareejinaynaa Axmed Nuur maadaama adigu aad talo wanaagsan ku tarsatay Axmed Nuur sida ka warqabto runtii dadka mas'uuliyiinta kulligood hal hadaf ku leeyihiin dalkaas iyo dadka ay u shaqeynayaan dadkuna haddii hawl isugu yimaadaan wax waa la isku qaban karaa markii wax la isku qabto oo runtii laga wada hadlo oo si qoto dheer loo gorfeeyo waxaa laga yaabaa in meel la isku raaco laakiin wax isku qabashada iyo runtii hawl markii ay timaado in dhinac kasta laga fiiriyo wax dhibaato ah ma laha laakiin markii warkaasi saxaafadda loo gudbiyo in mas'uuliyiintii ugu sarreysay nin walba uu saxaafadda ka hadlo oo dhinaca asaga uu taageersan yahay fakarka uu wato oo meesha uu ka sheego waxyaabaha ugu waaweyn oo runtii arrintaasi ka dhiga mid ka baxsan xataa in shaqo lagu kulmay taa maxaad ka leedahay waxaan soo jeedin lahaa laba arrimood mid waxaan soo jeedinayaa dowladda midna saxaafadda
dowladda waxaan oran lahaa in ay ku dadaasho waxyaabaha la yihahdo confidentiality-ga in macnaha wixii dowladda ku saabsan shirarkooda ama arrimahooda ama khilaafaadkooda macnaha in wixii aysan markiiba sax aysan dibadda usoo bixin oo ay tababaraan staffkooda xoghaymaha shaqaalaha dadka la shaqeeya in ay shirarkooda xataa aysan noqon shir xataa ninka waardiyaha iska dhex taagan yahay oo hadhow warkii banaanka usoo baxo suuqa wixii hadda lagu shiray banaanka yeelan marka dowladdu waa inay ay mas-uuliyad ay ummadda u haysaa waa in dowladda waxay ay xafidan yihiin wixii midiyaha loogu talagalay oo ummadda la ogeysiinaya waa meesheeda laakiin haddii khilaaf uu jiro waa in si hoose loo xaliyo madaxda dowladda iska aragtaa wixiina ay ahaadaan wax confidential ah la iska qanciyo aragti mar walba aragti kala duwanaan waa imaanaysaa laakiin markiiba yaan lala boodin oo loo arkin waa iga aragti duwan yahay marka anaa ka fiican asaa xun ma aha anaa wadani ah asaa kha'ina ma aha aragti markay kala duwanaato waa in la isqanciyaa waa in loo tala badsado qulubtan ay mid ahaataa waxaa islaamku xirahan aragti caqli kala duwan waa loo baahan yahay laakiin qulub midaysan baa la rabaa qulubta inay kala tagta lama rabo in mala fiican la isu malayo oo istiraahad ninka mas-uulka ah waa nin mas-uul ahoo wadani ah waddanku u dhaartay marka sidaad waddanka aga naxaysid sidaad ummadda aga naxaysid ayuu aga naxaya laakiinse sidaanay ula muuqataa marka bal meel isugu imaada saxaafadda ayagana waxaan odhan lahaa in ay ka baxaan isku dirka iyo saxaafadda qaarkeed saxaafadda o dhan macnaha in wararka lala soo boodayo markiiba oo lala aadayo maalan ila aan ogeyn waxaan ka helnay saana la sheegay kana la sheegay in dhinaca wanaagsan ummadda ay u jihayaan aysan u jeedin dhinaca khilaafka iyo iska horkeenka aysan ka shaqaynin ay ka shaqeeyaan dhinaca dowlad wanaagga ummadda sidii la isugu soo dumi lahaa mas-uuliyad baa saaran saxaafadda in madaxweyne ahoo maraykanka hadda ka hor soo maray taarikhda maraykanka waxaa laga soo wariyay wuxuu yidhi haddii dowlad la-aan iyo saxaafad la-aan nala kala dooransiiyo waxaan dooran lahaa buu yidhi dowlad la-aan marka saxaafaddu waa muhiim buu yidhi dowlad aan saxaafad lahayn waa macnaha dowlad ma ah marka saxaafadda waxbay dhisi kartaa ummadda soomaaliyeed ayay isu maarata ka shaqayn kartaa siday isugu iman lahayn nabadday qayb ka qaadan kartaa isjacaylkay qayb ka qaadan kartaa madaxda dowladda in la isu soo dhaweeyo bilcagsi aysan noqonin mid marka magac beel ku hadasha ama magac gobol ama isku dir ama iska horkeen keenta ee marka inay noqoto mid saxaafad wadaniyeed oo saxaafad isbedel la imaada sida uu waddanka isbedel aga dhacay ayaa waxaan ka rajeynayaa saxaafadda soomaaliyeed inay ayaguna sidoo kale ay tababarna qaataan isbedelna ay la imaadaan tarax runtii waad maqlaysaa sida haatan axmed nuur noogu sheegay haddii runtii madaxdu ay isqabato axmed waxa uu sheegay runtii in saxaafadda intii laga fogaan karo oo runtii khilaafkaas inta u socdo ay tahay wax dowladda sir u ah laakiin dadku inta badan dhegtaa u taagan saxaafad kala duwan baa jirta mid af soomaalidu ay leedahay mid dowlada ajnabiga ay leeyihiin oo af soomaali ku hadlaa jira oo resourcekooda aada u badan yahay oo cid walba si gaari karaysa dowladdu hadday la aamusto khilaafkeeda oo runtii ay muddo ku qaadato inay arrintooda xaliyaan dadkana tuhun badan ay qabaan sooma wanaagsana dadku si joogto ah dowladda inay briefing u samayso xaaladda meesha ay marayso iyadoo runtii ka ilaalinaysa hadalka dadka loo gudbin karo iyo midka aanan loo gudbin karin si markaasi uga baxo dhibkaa jira oo laga aamusan yahay waa xaqiiqo jirta maaragtay in saxaafadda iyo markii muran dhaco dowlad kali maaha qof kastoo maaragtay ama private ha noqoto organization ama ha noqoto hay-ad dowladeed ama ha noqoto xataa shaksi family ah markas aan ka wada reer in arrintooda maaragtay in ayaga ka dhamaystaan waa xaaladaha ugu fiican maaragtay ugu wanaagsan laakiin nasiib darro mararka qaarkood maadaama dowladda hadday isqabato ay dowladda ka wakiiltaa ummaddii hadda saxaafaddii ma huraysid mararka qaarkood haddaad qarqariso muddo badanna waxaa imaanayo hadhow dhibaata imaanayso oo ku saabsan maxaa intaa la aamusneed oo kale marka dadaa jiro shaqadooda iyo farsamadooda iyo aqoontooda ay tahay in arrimaha noocan ay xiliyaan marka waxaan jeclaan lahaa dowladda inay markasta la tashato dadka kusoo takhasusay xirfadaha noocan oo kale markay dowlad isqabsato waxyaalaha ugu hagaagsan ay qaban lahaayeen marka anigu waxaan aaminsanahay maadaama anaha ummad hadal badan oo aada u jecel hadalka waxna aan akhrinayn laakiin aada u hadasho xataa hadallada aan maqlan iska daya qaar aan iska alifnaa mararka qaarkood oo anaka nala wanaagsan aan idhaahdaa saasaa la yiri marka qof kastoo soomaali haddaad fiiriso isagaaba u taagan saxaafad kaligiis oo haddaad tagto meelaha qaarkood wuxuu ku leeyahay intuu ku dhihi lahaa waxaasaan maqlay waxaan badanaan dhahnaa saasaa dhacde oo mid qaldan ah oo mid kastaba mid kale usii dhiibo
kuwa saxaafadahana nolol ay u baahan yihiin shaqay haystaan maadaama mararka qaarkood ay ayaga nafsadooda xeelad aysan lahayn aqoon dheeraada lagana rabo mataqaanaa maqaalo inay qoraan waxaa laga yaabaa inay wax iska qoraan sida mataqaanaa hadalkaas aan ugu fiicanna marka dhibaatada ma aha kaasoo kale waxa laakiin wanaagoo dhan laga rabaa qof kastoo shakhsi oo Soomaaliyeed meeshuu doona ha lahaado laakiin anigu waxaan ku talin lahaa haddii dowladda isqabato dhexdeeda in arrinteeda ay xiliso ayagoo u geysanayo ama heerarkii maxkamadeed ee xeer ilaalin ay samaysteen laakiin iyadoo xalinta khilaafaadka u socdo dadku intii saxaafaddu intay ka faa'iideysan lahayd laakiin dowladdu runtii afhayeen bay leedahay dadka in update la siiyo meesha xaaladdu ay marayso wixii markaa dadka loo sheegi karayo wixii aan loo sheegi karinba in dadka dowladdu war rasmi oo ka soo baxo saxaafadduna aysan ka faa'iideysan taa laftigeeda soo macquul ma waa macquul waana raacsanahay sababtoo wadamadan aan ku noolaa reer galbeedka waxyaalaha ku hormara waxaa ka mid ah wax kasta ay isku qabtaan baarlamaanka qaarka mucaaradka la yiraahdo qaar kale mucaaradka ujeedada loo sameeyo waxay tahay in dowladda waxyaalaha ay hilmaamto inay xasuusiso ay shaqada ay qaban lahayd maalin kasta ku talgasho wardaadan si fiican u qaban dad kale ku sheegaya kugu qabsanaya si fiican u qabo iyo tan xigta inay tahay ayakana birri inay naqdaan dad ummadii u aragto inay wanaag sameynayaan oo qaladaad badan soo qabteen oo birri u ekaadaan dad wadankii hogaamin karo marka khilaafaadka sida professor Sulub sheegay mararka qaarkood xumaan ma aha oo waxay tahay wax hagaajin way haddaan Axmed Nuur uu yiraahdo cabdi waxaanaad hadlaysay oo wixii aan ka caaron aan personal u qaadan oo aan si hagaajiyo anigu Axmed Nuur isxaan oo ii sameeyay ma aha xumaan ima keenin Axmed Nuur marka waa in qofka saas u arkaa qofka mas'uulka loo dhiibo marka dowladda mucaaradkeeda inay u aragto ma aha qofkaani waa iga soo horjeedaa waa inuu meesha ka baxaa ama aan la colaadiyaa ma aha marka in maarta saxaafadii lala qaybsay la yiraahdo waxyaalahaas jiro ay isku mari la yihiin maamulkii iyo mucaaradka xisbiga dhexdiisa mucaarad lagama wado dad banaanka qoryo wata lagama wado dadka fikradaha kala duwan marka fikradahaasi si tartiib oo munaasib ku ah oo aan colaadii si hurunayn in loogu sheego saxaafadda intay meelaha ka heli lahaayeen in hadda Soomaaliya waa isnaqaanaa waa hadal badanna sida Axmed Nuur sheegay qof waardiyaha laga yaabo meesha taagan hadalka si kama inta u maqlay oo birri qof u sheego ama qof ka iibsado ama waxa laga yaabaa si kama qof mataqaan intuu meesha tago gurigiisa oo kula sheekaysta reerkiisa saa warkii ku baxo marka inta taa dhibkaas dhici lahaa way habboon tahay in maartay saxaafadii ka hor in wax la sheego haddii kale waxaa imaanaysa dhibaato weyn oo dad badan Soomaaliya lagu marar hawaabin karo ummadda dowladda taageer u haayay ama rajo fiican u lahaa tafasul mas'uuliyiinta dalka haddaynu soo qaadano dhammaan xubnaha ku jira golaha shacabka qaranka golaha wasiirada dhammaantood ra'iisul wasaaraha madaxweynaha nin walba oo mas'uula inta badan waxaad arkaysaa saxaafaddu waxay isku daydaa qof alla qofkay gaari karayso markii nin walba mas'uul uu saxaafadda la hadlo oo haddana dadku isku hadal ma aha dadku runtii isku aragti ma aha saxaafaddu inta badan waxay isku daydaa inay qodqodo oo wax badan ay ogaato haddii agaasimo guud inta uu hadlo hadal wasiir uu hadal ka yiraahdo madaxweynihii uu hadlo nin walba mas'uul uu hadlo hadallada tirada badanna saxaafadda isku geyso oo nin walba wixii kan kale uu kaga duwanaa u sheego khilaafkaasi ma isleedahay waa waxyaabaha runtii process wanaagsan socda dumin kara horta marka hore dadka madaxda caadatan khaladaadka ay madaxda gasho waxaa ka mid ah qarinta qof madaxa khalad buu galayaa wuu qarinaya haddii uu khalad ka dhaco qof madaxa inuu yiraahdo waxaa anaa sameeyey anaa in hala sameeyo waana khaldanay anaana mas-uulka ah xilkaasna anaa qaadaya khaladkii iyo wixii ka yimid geesinimadaas madax badni malaha wuxuu ku dadaalaya qofkii madaxda ah inuu wax qariyo oo ka qariyo shaqaalaha saas oo kale qof aan madax ahayn waxbaa dhacaya hawl loo dhiibay waxbuu khaldayaa wuu qarinayaa muxuu qarinayaa ciqaab buu ka baqayaa ama shaqada laga cayriyo buu ka baqayaa wuu qarinayaa haddii uu yiraahdo qofkaasi waxaas waan khalday saasay ahayd khaladkuna khalad macquul yahay in dadku ay khaldamaan marmar waa loo baahan yahay kolkuu khaldamana uu qirto kadibna isa saxo madaxda waa saas oo kale qofka madaxda ah hadduuna khaladkiisa qiran hadduusan khaladkiisa sheegin hadduusan u ogolaan saxaafadu in ay ka hadlaan
waxaa meeshii gelaya been kutirkuteen xan iyo waxaan jirin runtu banaanka hala soo dhigo waxyaabo waa jiraan in la qariyo u baahan wadanka maalan amnigiisa iyo waxyaabo waa laga yaabaa in ay maarata u baahan in la qariyo way jiraan wax kasta banaanka lama soo dhigo laakiin wixii ku saabsan maamulkii iyo khaladaadkii dhacayay in la qariyo ma aha hadduu ninka madaxdaaha ogaado ama wasiirku ogaado ama briministku ogaado ha la saxo haddii la sixi karo hadduu maasmeedihu dadku ogaadaanna runtii hala sheego runta in aad runta ku tagtid baa kaaga roon inaad been ku jeegtid meesha waa mahadsanta waa ka agolmasantahay runtii barnaamijkayga gabagaba ayaan ku dhow yahay ilaa 4 daqiiqa noo hartay waxaan barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa inaad talooyin si gaar aad ugu soo jeedisaan golaha shacabka qaranka xildhibaanada sidaad ka warqabtaan xildhibaanada soomaaliyeed inta badan aad bay isku qabsanayeen ilaa heer waxaa gaari jirtay in ay gacan isula tagaan in kuraasta ay ku fadhiyaan ay u isticmaalaan inay wax isku gaarsiiyaan marka maxaad usoo jeedinaysaan golaha shacabka qaranka waad arkaysaa markii la hor keeno waxyaabaha laga hadlayo waxyaabaha xasaasi ah mar laga hadlaya go-aano adag baa la qaadanaya baarlamaankii waa lagu kala qaybsan yahay nin walba waxa uu rabaa waxa markaa asaga uu jecel yahay inuu codayo marka maxaad kula dardaarmaysaa xilkasnimada iyo biseylka laga rabo xubnaha golaha shacabka qaranka axmed nuur waxaan kula dardaarmayaa golaha baarlamaanka ama xildhibaanada inay way dharteen kitaab quraan ay ku dharteen inay dalka iyo diinta iyo dadka ay daacad u noqdaan inay taas xasuusnaadaan oo ay maaragtay wax walba ay ka horumariyaan danta dalka diinta iyo ummadda Soomaaliyeed oo ay ku joogaan taa wax arrin kastoo la hor keenana inaysan masaalix khaas ah aysan ka eegin iyo danaysi iyo koox aysan noqonin ay noqdaan maxaa dalkan iyo diintan maaragtay dan u ah waxaan akhriyay hadda ka hor kitaab uu qoray sheekh liraaho Abu La'la al-Mawdudi oo Pakistan ayaa wuxuu kaga hadlayay dowladnimada islaamka sida ay u dhisan tahay sida loo dhiso marka waxyaabaha la weydiinayay marka uu ku qoray waxa kamid ah xisbi mucaarad ma jiro intee xisbiga mucaaradka laga keenayo markaas wuxuu yiri isla baarlamaanka islaamka ayaa wuxuu yiri marna muxaafid marna mucaarad markii uu madaxweynaha si sharci ah oo ku socdo oo wax walbana uu fiican u wadana waa taageersiin madaxweynuhu iyo dowladii way taageersiin markii dowladda ay khalad ku arkaana way saxayaan oo waa ayaga mucaarada marka isla baarlamaanka ayaa laba shaqo qabanayo leey marka anaga situationkeena waa saas oo kale xisbi mucaarada ma lihin marka baarlamaanka inuu noqdo baarlamaan marna muxaafad ah oo dowladii iyo shuruucdii dalka ilaalinayo oo taageerayo oo dowladii maaragtay ilaalinayo marna inay noqdaan wixii khalada inay ka qabtaan ummadda iyo dalka marka taasaan kula talin lahaa iyo maaragtay waana taan soo jeeday hadayna in baarlamaanka naftirkiisa fursado la siiyo tababaro ah aqoontooda ay kororsadaan ninkii xildhibaan meesha aan intaa u tagina waxaan qabaa inuu hadee meesha isaga tago xildhibaanku inuu noqdo xildhibaan u tagay ka danqaday dhibaatada dalka iyo ummaddiisa inuu dhib la qabo iyo dheef uu wax u qabto ma tuhmayo laakiin haddii uu jiro qof meesha u tagay dana kale ama magac ka samaysa xildhibaannimo magac ku qaada ama dana kale waxba ummadda uma qabanaysidee isaga tag haddii aad si ku joogtay ilaahay dartiis iyo dalkan baaba'ay iyo ummaddan wax u qabo maaragtay ajar baad ka helaysaa shaqadaad ku joogo anigu waxaan dhihi lahaa dadka xildhibaanada waxay leeyihiin astaamo badan oo dad fiican oo ayaga lama soo sharxino ummadda ma dooran ayaga loolan sameeyey karti muujiyey kana dhaadhiciyey madax beeloodkooda inay dad fiican yihiin oo u qalmaan jidkay doonaan ha u soo maraan marka horta taas waa ku mahadsan yihiin laakiin tan laga rabo waxay tahay maadaama qof kasta aad tiri anigu ummaddan u shaqayna hadda xisaabtankii waa lagugu leeyahay madaxweynahana idinkaa doortay madaxweynaha waxaad u doorateenna iyo xisaabtankaa u ordayseen aysan naqan mid ah warqadan madaxweyne ii saxiixi dantan gaar ahaaneed madaxweyne ii samey ay naqato ummadda waxaan loo qabto iyo ummadda waxaan loo sameeyo ummadaasna aysan naqan kaliya ummaddii aad ka dhalatay ama aad lagaa soo doortay ee aad naqato taasna ha ku jirto oo ummadday la mid tahay laakiin ummadihii kalena wixii ka maqan oo xaqdarra aad aragto ayakana inaad mataqaanaa advocacy aad samayso haddaad aragto dhibaato ay sameynayaan qolo kale kula jiro inaad tiraahdo war iimaanka isgeli oo aad ka celisid dadka walaalaha xuquuqla jiro baarabaan sababtoo waxyaalaha wanaaga muujinaya waxay tahay markaa ummad wada shaqaynaysaan inaad qofka walaalka ah oo kula shaqaynaya halka hadaf aad wada leedihiin aad kula shaqayso mataqaanaa niyo fiicnaan oo ay ka mid tahay si aad ku gaari lahaydeen hadafkii aad lahaydeen aad ku wada ballanteen
oo ah in aan dhaqsi gaarno qabo qofka hadduu qalad gale hadduu u baahan yahay kaalmo ama geesnimo gelina la safo kaalmay haddii adigu kula wanaagsan tahay ilama lagaa dhaadhiciyo inay waxaas qaldan tahay maskaxdaadana ha u furnaato mar kastaba wax horumar ah ama wax barasho cusuba waxaadna aqoon haddii wax lagaga sheego ha diidin ee baro marka hore ee ogow adigu ku salayna haddii xataa ay kugu adag tahay la tasho dad aad ku aamin qabto ama reerahaaga ha noqdaan ama dadka kula shaqeeya ha noqdaan laakiin ha naqan mid macangiga ee ku dhego wixii loo sheego ama wixii lasoo furtay ummado banaanka jooga ay isticmaalaan ay ayagoo sida remote sida telefishinada loogu dameeyay ay u isticmaalayaan noqo mid ummadda Soomaaliyeed ay ka hesho waxa ay ka filaysay dhammaanteed ugu yaraan wax ku dhow waa ka baxay aad iyo aad baad umahadsantihiin runtii aad baan u jeclaan lahayn in maadaama dad runtii miisaan kule bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Ottawa aad tihiin in barnaamijka intaa uu ka dheeraado haddii fursad aan u helno mar dambana aan kulan noocaas samayn doono barnaamijkayagii daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa oo ay marti noogu ahaayeen stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya ee magaalada Ottawa qaar ka tirsan golaha midnimada qaranka Soomaaliyeed oo qaybtooda magaalada Ottawa oo ay stuudiyaha nala joogeen Dr. Soob iyo Dr. Ahmed Nuur iyo Dr. Tarax barnaamij lamida inta aynu ku kulmi doono anigoo ah Maxudiin Jaamac telefishinka qaranka Soomaaliya ilaa iyo kulanti dambe amana Allah